ومدح سوماليات أو مدبمتك كلا دعوة كيهي مصيرك يا آية كتلنت دلك يددك أي مدح ذويهنا ولا لا ليهي قبكودي aan kor u qaadno qabka iyo sharafka Soomaaliyeed ee uu madaxweyne Farmaajo sheegto inuu soo celiyay ma waxaan ku miisaanaa xaqiiqaha jira mise qof jeclaysi iyo dareen qabyaaladeed Soomaaliya halkee ay maanta taagan tahay 4 sano kadib jawaabta su'aashan iyo taariikhda oo aan dib u raacno ayaan halbeeg ka dhiganaynaa gudaha iyo dibadda ayaanu markaasi u kala qaadi doonaa Soomaaliya oo ku meel gaarnimada ka baxday 2012 masraxyada dunida ay dib ugu soo noqotay madaxda qarankana waxay ahaayeen kuwa wax ka fariista xafiisyada laga go'aamiyo siyaasadaha caalamka 4 sano kadib waxaa siyaasadeena arrimaha dibadda noqotay from White House to Abiy xafiiskiisa waxaan ku soo aruurnay Eritrea iyo Ethiopia waa natiijada siyaasad qalqalsan ee uu madaxweynuhu dalka ku hagay 4 sano ee la soo dhaafay 2016 muqdisho waxaa marti u ahaa madaxda Afrika oo 40 sano kadib uga qayb galayay shirka IGAD shirka goobta uu ka dhacay ma ahayn xirada xalane ee waxa ay ahayd gudaha muqdisho calaamada Afrika oo uu ka dhex muuqdo Kenya midabka san ayaa wadooyinka muqdisho ka babanayay Uhuru Kenyatta oo aeroboortka uu ku soo dhaweeyay wasiirkii gaadiidka xilligaasi ayaa ka mid ahaa madaxda timid madaxweynihii xilligaasi Xasan Sheekh Maxamuud iyo isaga ayaa muqdisho lagu heshiisiyay Uhuru waxa uu xal u raadinayay ganacsiga qaadka iyo dacwadda badda balse 6 maalmood kadib September 19keedii 2016 isla sanadkaas waxa The Hague ka bilowday dhageysiga dacwadda badda 4 sano kadib garoonka aadan cadde waxa uu qaabilayaa ilaalada ciidamada dawlad goboleedyada waxaana xirada xalane lagu heshiisiinayaa madaxda goboleedyada Soomaaliya iyo madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday Farmaajo markii uu gabay kaalintiisii hogaamineed iyo in Soomaaliya uu dib heshiisiin ka dhex abuuro waxa galay booskaas ergeyga qaramada midoobay James Swan waxa uu tagay bil gudahood Baydhabo Dhuusamareeb Garowe Jowhar iyo Kismaayo waxaana gabagabadii fariinta beesha lixaad uu geeyay 30 January fila Soomaaliya madaxweyne Farmaajo oo u muuqda inuu qaatay waxa loo sheegay ayaa saacad kadib kulanka soo saaray qoraal uu ugu yeeray madaxda dawlad goboleedyada inay ku kulmaan Dhuusamareeb intii u dhaxaysay September 2020 ilaa March 2021 sanadkan tiradii ugu badnayd abid fariimo qaar ay u muuqdaan amar ayaa waxa daabacay safiiro ay horkacayaan Yamamoto iyo James Swan fariimahan ayaa ku wajahnaa madaxda Soomaalida oo Farmaajo hormuudka u yahay waxa la idinku boorinayaa waqti baa idinku socda waa inaad u timaadaan Soomaalidana u turtaan waa qaar kamid ah erayada safiirada shisheeyaha Twitterka iyo Facebooka ku daabaceen iyagoo la hadlaya Farmaajo iyo madax goboleedyada fariimaha Twitterka ay soo daabaceen safiirada xalana fadhiya ayaa madaxweynuhu ka falceliyaa marka uu diido baaqyada bulshada iyo siyaasiyiinta kaga yimaada siyaasadda madaxweyne Farmaajo ee ku salaysneed nabadoonnimada waxaa laga dareemay Ethiopia iyo Eritrea balse gudaha waxa uu ahaa matanaasulo ka gudbi waayay gobolka Gado Soomaaliya waxa ay kaga gudbi kartaa baahida shisheeyaha sokeeyaha inay heshiiyaan oo ay sogolaadaan siyaasadeena arrimaha gudaha oo xumaatay ayaa keento faragelinta teeda qalloocan inay noo timaado mas'uuliyadda madaxda dalka ay ku dhacay inay dalka isku hayso dadka siyaasadda ku jira isku hayso